كل wanaagsan dhamaantiin daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqan iyo dhigaal oo fanka Soomaalida iyo taariikhdiisa aanu ku falanqeyno waxaanu hadba soo casuunaa qof aan isleenahay taariikhda Soomaalida gaar ahaan fanka ayuu door muhiim ah ka soo qaatay ama uu kaga jira markan waxa fursad iyo nasiibkuba uu nasiiyay inaanu la kulano Caasho Ciga Geedi oo kamid ahayd kooxdii General Daawud isla markaasna heesa diiwaan galay oo dadku aad u jecleysteen qaaday Caasho magaalada Hargeysa ayaan kula kulmay oo runtii aan u mahad celinayaa inay soo dhaweysay oo ay wareysigana iga aqbashay Caasho soo dhaw kula wanaagsan horta kula wanaagsan waa dhowaa aad waynu sheekaysan doonaayo heesahaagii iyo taariikhdii iyo kooxdaadii iyo dadkii ku jiray ayaynu isla falanqeyn doonaa bal kalka hore Caasho xilliga dhalatay iyo halka ku dhalatay iyo barbaarteedii iga sheekay xilligan dhashay iyo halkan ku dhashay horta berberaan ku dhashay aan ku dhashay waan ku kacaamay waxaan u maleynayaa 63kii inay ahayd waan u maleynayaa ma hubo iyaa ka horeysayana mooyaane kama foga hadii ka horeysan waa inay waqtiga ahayd ayaan u maleynayaa marka de halkaasaan ku kacaamayo aan joogayo eedaday baa halkaa ay haysatay reerkeyga anaga waa reer hawd oo halkaa kilarkee dhulkaasay degaane waxa weeye eedaday baa ay korsatay oo meesha haysatay eedadayna dee anigoo 10 jir intay xashka qabatay ayaa xashkii dadku waa la isjiiraa baa la yidhaahdo weli maan arage waa la jiiray halkaasay ku dhimatay marka dee berberana Soomaalidu way ku yareed hindida carabta yamaanida suudaanta waxaasaa ku badnaadee oo meheradaha iyo dhulkoo dhan haystay kadibna qaadiga berbera oo ay eedaday macaarif ahaayeen oo loona jiray Cali Qaasim ayaaba i koriyey oo carab ah ninka oo qaadiga berberana ahaa dibadna sida hindidii iyo carabtii qabiil lama noqon Soomaaliyana ma joogin xaafad haddaan xataa lacal ciyaalkaygu isku leyno dee xaafada markaanu duulo labaanu Soomaali ku nahay 10 haddaanu ku tagno laba Soomaaliya inta kale waa ajaanibi dee kuwaas mar walaaladayo u naqaanay anagu Hargeysa markaanu nimaadna soo xaga baxnay ma lagu jiray qolo maatiin dee ma naqaano qole reer berberan baan oran jiray haade marka halkaasaan ku dhashay anigu marka adoo yar berber loo keenay haade waxa aan garaad lahayn waxba garanayn hawdka gaar ahaan deegaankee buuhoodle صح buuhoodle area buuhoodlo asifiya sidaan maqlay waa area buuhoodlo magacaaga saddexna waa Caasho Ciga Geedi magaca hooyana siraad aadan waan gartay berbera dadka maadaama dad kala duwan oo hindi iyo carabi iyo luqado kala duwan bay ku hadleen iyaga laftooda waxaan af Soomaali aqoonba ma joogin waayo wax 20 qarni wada joogay wax 20 dayagu qofku ha yaqaano asalkiisa afkiisa horta ha haysto laakiin wada 10 qarni wada joogayo waxaan af Soomaali ku hadlayninba ma jirin markab yimaada ama dooni timaada oo kuwa kuusadaha iyo wax iibinaya ayaa mu kan maqli jiray carabiga iyo waxay ku hadlayaan dadku af Soomaali ku wada hadli jiray dadka inkastoo tidhi Soomaalidu waa yaraayeen ama Soomaalidu waa yareen fanka soo caan baxay ama la bartay berbera xilliga ku noolaayeen yaraantaadii xasuusato hebel ama hebel ay la oran jiray aadan tarabi ayuun baa riwaayadiisa oo reer berbera ahaa ayuun baa riwaayadiisa berbera laga dhigi jiray
kowdhe oo gabadhan kuleeyahay aniga cali baa doonaynay inay naga badisay samson folgo dee cadan tarbi way u heesta ruwaadiheeda waxaan malayn riwaayadii la odhan jiray xaajiba la yaab leh balanqoda xabaalaha ayay ku jirtaan filaya may way ka horreysay way ka horreysay xaajiba la yaab leh anqoda xabaalaha marwiye waxay ahaayeen cali xagjarkii dhintay xabad baa ku dhacday burco isagana dagaaladii ayaa ugu waashay horta xaajaba la yaab lu ku waashay xabaalihii uu qodayey ayaabay ka raacdayba bartibuu maradaba dhigay kaasi dabeedna isagoo waalan sidii u waalan ayuu burco joogi jiray halkana noogu iman jiray xataa markii aan defanka galay ma garanaysaa uu noo iman jiray uu waashay laakiin waalidiis waxba kama khaldanayn waali aan khaldanayn uu dadkii hebel iyo hebel iyo hebel u garan ayay ahayd ha marka riwaadaa kumay jirin samsamiyada ka sheekay bal maxaad sabsabta foolga maxaan ka xasuustaa waxaanu isugu nimi xaafadaanu saryanayno yaa iyagoo laba xaafadood oo colaano annakana barwaaqaana la odhan jiray iyagana wadajir baa la odhan jiray oo waa xaafadda jaamalaha iyo daruuraha iyo berbere la yidhaah wadajir baa la yidhaah annakana barwaaqo oo xaafad bartanka ku jirtaanu nahay oo maca inta qaybta dowladdu raacsantahay ma garanaysaa markaa maanan doonayn de inay xaafadda macolka naga badiso cali maydhano oo laga keenay ciidamada ahaa oo markaa xagga galbeedka nagaga yimi oo ciidamo lasoo dejiyey berbera ayaa maxay haytay galay heese iyo wax sameeyey cabdifalaashkan iyana way joogeen iyagoo fanaaniina ha dabeedna maxay anoo ka imi burco laygu yidhi xaafadiina waa laga badiyo samson folga u heesta dowladduna waxaan hees ahayn qiimo fiican ma siiso heesta 2 buundo ay dowladdu siin jirtay laakiin waxa kale ciyaarahan iyo waxaan iska cayag bay ahaayeen oo dabeedna de wax idii heesaa la waayey dee markaasaa laygu yidhi cabdifalaash tan iyo caasho yaray waad heesi kartaaye kaale u hees caasho yar baa la odhan jiray kaale xaafadeenna u hees cali maydhanana waa loo yeedhay cali maydhana waa ninkii qaadi cali cumar maydhana waa ninkii heestii ha guuguule heesta waa riwaayadii axmed libaaxdi waan u tegay axmed libaax laftiisa riwaayadihiisi weeye dabeedna cali maydhana waa loo yeedhay cali maydhana hal hees buu qaaday anigana hees bay ii dhiibeen ya heesta ii dhiibeen markaa maskaxdeydii way fayoobeydoo waxay ahayd dirirkii noo curtiyo daruur hilaacdayo na maxay ahayd door moji way yaacday daruurta dirirkii noo curtiyo daruur hilaacdayo calankii war ilaawe dhulkoo dhan doojiyay wax saasay maxay yaaci weyde yaa curiyey waxaa sameeyey cabdifalaashkan inay saaxiib yihiinoo imikana sacuudiyaano marmar yimaada ayaa sameeyey fanaaniin waxoogayahoo isku yar oo dee aan dee shaqaale dowladeedna ahayn ayay ahaayeen ayaa waxaan sameeyey dabeednadu heeskii waa la ii dhiibi dee dabeed meeshii baan la tegey habeenkii tartankii cali baa igu horreeyoo heesay anigaa meeshii galay waxay dhaheen inanta yar way baqaysaa de inan yar baa shalay isruwaa la waansitay way baqaysaa cid ku daro oo de inan yaroo carab soomaaliya iyo cabdifalaash iyo inan kale ayay iskay agtaago yidhi waanu u jiibinaynaa ha dabeedna guddidii baana diiday waxay dhaheen inanta yar ma heesayse cidda heesaysa sida reexamarkaa godka laga heesayaaye sheega cidda heesaysa waxay soo direen nin samayn jiray farshaxanada reer Hargeysa meela uga furnaayeen saasuu iyo ega jaar baan warwaayada buu markay weelka xalaysan u naqaan magaciisa ma xasuusta ninkaas ninka kale isagaaba noo yimi oo halkan cabdifalaash intuu yidhi heestaana shaqo kumaan lahayn meeshana berberana shaqo kumaan lahayn ayaaba ninkii dibadda ka yimi noo yimi markaasuu war maadaa dafiray dada wuu ismaydhayaa dadku waa la ismaydhay war maadaa dafiray markaasuu yidhi heestu miyaanay taydii ahayn tii aynu inagu wada xafidsiinayna miyaanay ahayn aynu caashay lagu yeernay marka taasa ay ugu horreysay imisadeed markan xaafadda barwaaqa aad u tartamisay matalas mise jir baa qiyaasaan anigu da'da kubaan xisaabtamaynin laakiin waxay ahayd 76 baan kala garan lahaa ayay ahayd kadib maxaa kugu xigay
dee maxaa iigu xidhay miyaan wax dambaba shaqo ku yeeshay cali maydhana markii arkay cali maydhana waana laga soo bedelay ciidankiisii waxaa la keenay hargeysa dabeedna kooxdii janan daa'uud buu soo galay kooxdii janan daa'uud hadduu soo galay riwaayadaha loo yaala oo cabdiraxmaan dheere diiday inuu hablihii waa berina laga joojiyey oo la yidhi dee markay maaragtay maalintaa wax dhigaan ay dee kooxdoodii u tegayaan iyaguna waxay doonayaan riwaayadoodii inay la wareegaan ma garanaysaa cabdi caliweed ilaahay naxariistii jannaha ka waraabeyeena uu yidhi inan dambe oo waa beri ayaan loo dhiibin maxay tahay heesaha jalaal daawud ila cabdi caliweed jalaal daawud buu ahaa ayaan loo dhiibin ayuu cali macamarin xaggaa ma igu soo arkay halkanuu yimi kooxdanuu galay anaa inan inoo haya buu yidhi oo arkay berbere joogta dee doon baa la yidhi cabdi kaamil cawaale iyobaa cabdiraxmaan dheere iyobaa yidhi doon inantaa aad soo aragtay cabdi kaamil haddaan dadka xasuusina waa ninkii calankayga nuur waxaan ahay naftii hore ninkii odhan jiri weeye dee wuxuu ahaa horjoogaha iyaga dee mayaan anigu la joogay intaasay ahayd intaan ka garanaya dee waxaan ahay naftii hore haddii aana soo noqon calankayga nuurow allahayow ku nabadgeli intaasaan ka aqaana ya jigjigu ku dhintay 2007 deba miina lagu tuuray ha waa la qarxiyo waan ogeyn maalintii kadibna cali cumar maydhana ka dee cali bay soo doonay dee isla maalinimadiiba nin aniga ii seedi ah oo gaari la odhan jiray oo musigiisto asluubta xamar ka tirsanaa qolada wax tuntay iyo ayaa joogay oo halkan yimi oo musigiista nooc walba yaqaan wax walba oo saara cileeya gabadhii la odhan jiray dhimatay ninkii qabay uu furay jangoba uga dambeeyey jangoba uga dambeeyey caruur ba u leedahay namay u leedahay markaa kaase iyabaa joogay oo cabdiraxmaan dheer aa yidhi war bal wuxuun qaraamigii iyo dee wuxuun u tub dee hees yaroo qaraamigii bay tuntumeen heestii markaan galay saasan bay eegeen waxay dhaheen war tanaan ruwaadaa inoo xafidaysaa heestabeed dee qaraam dawaya aydan doonahayo taasay ahayd waa xaafuun laxankii xaafuun xaafuun iyo wixii horeba ma kala aqaane hadda xaafuun lafteedaaban arkay ba anigu gabadhii xaafuun ma jiray bal iga horran iyadana berberay joogi jirtay dee iyadoo cadan laga soo masaafuriyey ayaan berbere ku arkay markii dambena xamar bay noo dhaaftay xaafuun taariikhda fanka aad bay ugu jirtaa gaar way ku jirtaa waa gabadhii horeysay qaraamkii hore aad bay ugu jirtaa iyada iyo iftin iyo nooleeye iyo dadkaasi dee iyo guduude iyo guduude iyo may guduudada waaba la arko waaba la yaqaan waa tii shalay dhimatay dayadu shalay dhimatay laakiin dadka aan xaafuun haddaba anigu waan arkay gabadh soo eeg bayd gabadh gaaban bay oo yaroo inta leeg oo bilaa hiliba aan hilib lahayn saari yaroo hindiya ayay xidhan jirtay qof yaroo aad markood meelaha ay waanay cag fududayd oo markay meelaha sii socoto iyadoo cadan laga soo masaafiriyaan berbere ku arkay markay meelaha socoto ilmo yaroo sii socdo hindiyadaad moodaysaa birig birig birigo maariina way ahayd markaad ay kugu soo jirto darkas inay qof weyn tahay kowdhe manaa way sar yareyd way sar yareyd oo waanay gaabnayd waxay saalbaaniyaalka waxaa la yidhaaho ay xidhan jirtay ma hees jirtay markan berbere joogtay may caadi bay iska may heesi jirin sax caadi bay xaafuun magaca xaafuun bes baad u taqaan xaafuun baan u aqoonay oo gabadhii heesi jirtay in baa la yidhi bes si fiican waa aad bay kaaga horreysay marka mayaan garan waa kontoladii walaalay hargeysa ku jirtay walaala hargeysa maaha waabay kasii horeysay waa inantii horeysay ee kaba looga tuma baa lagu leeyahay idaacadda furtay xaafuuni markii weydiiyey rashiid bilaan weydiiyey waa gabadhii u horeysay ee idaacadda furtay buu yidhi ee heesba gabadh soomaaliyeedoo heesba laga guduudo way ka horreysay hadda guduudo way ka horreysay marka waaba tiida idaacad ba lagu qabtay xagga fankooda say u kala horreeyeen ma garan karo laakiin idaacadda markii laynoo sameeyey furitaankeeda waa gabadhii horreysay baa layidhi lagu furay in lagu furay ayuu rashiid bulle igu yidhi in hees ugu tunay si fiican war wanaagsan marka laxankii xaafun baa lagu tumay yaa kamanka yaa tumaya adiga maalinta gaari sabab ku sheeg gaari baa la yidhaha oo ninkii saare cileeye caruurta ay u lahayd yaa joogay meesha waxaa joogay cabdiraxmaan dheere maxamed dheere cali caateeye axmed shire cali baanday allaha u naxariiste waxaa kaloo joogay oday lahaan jiray boodhari meel la yidhaaho
oo cajaladaha beriga la dhigi jiray oo halkaa suuqa ahayd oday cabdifiigar baa la odhan jiray adigu iyo cali maydhane dee intayada fanaaniinta intaa kooxda ayuunbaa joogtay meeshaas dumbuluq dumbuluq guri fanaaniintu leeyihiin miya cali maydhanaa lahaa waaqalkii cali maydhan kadibna waxa la go-aansaday in general dee dabeedna subaxiiba intay tageen ayay jaranka u tageen noo shaqaalee bay yidhaaheen ya dabeedna waa la ii yeedhay isla subaxii inay garaadda isiiyaan waan diiday may baan ku yidhi adeer may military noqon maayee haddii ay dee darin tiri la shaqaynun markaa waxay igu soo qoreen wax la yidhaha military saato la shaqeeya la shaqeeya ayay igu soo qoreen dee ciidankan iyo waxna waan ka mushaahar badnaa mushaharba ma jirin markaas 300 iyo baa la qaadan jiray iyo 200 mushaahar dee lacagtaa wax qabanaysay oo baysteyn iyo gamba iyo dee waxbaa wax lagu cunaayey dee waxaas wax lagu cuneeyo dee tayay lahayd marka lacag badan baaba laygu soo qoro dadku wareego 500 shilin ee mushaharkayga laga soo dhigay 500 waaban la wareeray waa 79 soma oo bishii 12aad 7deedii bay ahayd waan ka noqdo ila maryahaygan doonto kadib baan haddana dib u soo noqdon riwaayadda xafiday 15 cishaan riwaayaddana ku xafiday markaas yaa madax u ahaa General Daawud xilligaas dee waxaa horjoogo u ahaa cabdi kaamil horjooguhu ahaa dee ciidamada waaxda siyaasadana way ka tirsanaayeen ciidamada dabeedna waxaa haystay nin korneylaho cabdi xasan wax caynkaasa loo odhan jiray oo cabdillaahi yuusuf adeero ahaa ayaa markaa meesha haystay markii dambena waxaa la keenay nin kale oo isna de halkaas baa laga xukumayay ciidamada halka madaxweynihii de puntland soomaaliya markii dambena de aduu halkaa afay nin la yidhaaho oo isna maxay ahayta malaa kililka ah ayaa maxay ahaytay xukumayey oo joogay afayna dee halkanaa lagu dhaawacay xilli dagaaladii halka lagu dhaawacay dhaawiciisa sidii loo qaadana dib maanaan arag sidii loo geeyey xamar gartay in riwaayaddii la odhan jiray farxad waa naxdin ayaa riwaayaddii la xifdiyey taasay sooma riwaayaddii koobaad waa farxadii waa naxdin cali cateedeer yaa lahaa cabdiraxmaan laxanka iyo midhahana waxaa lahaa maxay cali cateeye laxamadoo dhan waxaa saaray cabdiraxmaan si fiican gabdhaha ku jira kooxda maxaa ayaa ka mid ahaa xilligaas aad ugu timid canab diiriye aamina daahiro ahayd gabadha maxay tacalin baydhana qabo inaan halkan suuqa fadhido imika aad ciyaalba moodeyso oo ad imika ciyaalba u haysato meeshan hadhuudhleyda dhex fadhido foosiye axmed ismaaciil baa la yidhaha halkan imika joogto inta saa u eegan ku dhaa maxaa anaga nagu dhacay adiga weli ciyaalka ahe halkan hadhuudhleyda hadhuur ku iibisa tiriig xaashi oo iyana dee maxamed deeriye waa tii doonidii jacaylka iyo la qaadi jirtay kuwaasaan hablahaasaan ugu foosiye markaa iyadu doorkeeda kibuha muxuu ahaa jilaa heesaagu wax heesaaya canab diiriye iyo tiriig xaashi oo guulwadayaasha ahaa dee marka canab iyada waa la askariyeeyey oo aliflaabay ahayd kowdhe tiriigsa weli guulwadayaashay ku jirtay xaggana de way xaggana way la shaqaynaysay tiriig fiican markaa riwaayadda adiga doorkaagu muxuu ahaa horta riwaayadda nuxurkeeda guud muxuu ahaa dee jacaylun iyo isaga qisa un adigu ku dhacday cali cateeye yaraantiisii ayuunbu riwaayadda ka sameeyey oo bedow ahaa reer miya oo askarta markii la qorayay askaraha de malaa 60nadii waxaa la yidhi nimaan dheerayn lama qori jirin baa la yidhi oo dadka gaagaban waa laga xanaaqi jiray de waxa isagaaba nagu yidhi dhagax baan isku taagay sidaan u dheeraado oo la ii qaataan dhagax isku taagay marka nin reer miyana wuu ahaa dee dabeedna wuxuu yidhi reer miyigaana waan ahaa wuxuu jeclaaday show inaan nin sarkaalo oo saraakiisha markaa ugu sarreysay laba xidigla adduunyadaba ugu sarreeyey inanay walaala yihiin dabeedna ina tula sheekaysan jiray malaa wuxuu yidhi markii askariga lasoo qoray waxaa la keenay cadaadleydan inantiiba waraaqa usoo dirtay iyadoo waa mutacalimad
wax afgaranaya oo garanaya ingiliish af soomaali ma jirin layna ingiliish garanaya waa inanta walaalkeed bal yaa u akhriyaya cadaalena waa ku xidhan yahay oo yaa u dhiibi kara de walaalkeed waa inanta walaalkeed unbaa garanaya cali caateeye wuxuu go'aansaday ilamaa uu ingiliish barto inaanu gabadhaa u jawaabin yaa markuu muddo ku jiray dee degdeg ayuu dee labanaya waa isugu buuxiyo inantii warqadii sidiibuu ku diray dabeedna waa warqad kaley soo dirtay ayaa walaalkeed loo dhiibay wuu arkay walaalkeed cadaadley baa la joogaa halkaasay sartu ka quruntayoo calina xaggan loo soo eriyaday inantiina nin degdegaaba lagu meheriyey oo lemuhu yiri walaalkeed wuu ka faanaya maaskarigan yare xunee madow ee aan tababarka siinayey ayaabay isjecel inay waraaqa u soo diraysaa ya nin degdega ayuu ku xidhay inantii dabeedna cali gabadhiga kenya la geeyey kenya ma la geeyey aduu sheeko isaga ahayd ayuu riwaayadda ka sameeyey dabeedna isna gabadhiyo wuxuu ka soo qaaday uu guursadayoo inan u dhashayoo maxay haytay uu soo furayo uu kenyaati ahaayo waa kaas wuu sawiray sheekadii oo inanku waa cabdiraxmaan buu ka dhigay anigana waxaa i dhalay cabdi kaamil cawaale hooyaday imaka way dhimatay gabar wadaadada bay ahaydo aad u mateli jirtay jilaa ahaydoo jilaayada aad u fiican waa gabadha keliya dee somalilandaba jilaaga iyo hurye iyo bay la tartami jirtay aamina aadan xaashi xamar bay ku dhimatay dhawaanba maaha dhowriyo 2010 malaha ayay aamina aadan xaashi xamar ku dhimatay dhal wadaad bay ahaydo xaggii wadaadnimada intay u baydhay ayay qur-aankii halkaa ka dhigi jirto midda kale odaya caruuru lahaydna halkaasuu joogay oo korneyl ahaayo halkana lala joogi jiray dadbadna inta halkaasay ku dhimatay loodhan jiray ma odaygeedii maana magaciisiba garanaya waa ismasaxaye maana magaciisiba garanaya ismasaxaye odaygeedii kadibna riwaayadtaas u sawiray riwaayadda waa sawiray dabeedna anigana wuxuu sawiray miyii baanu joognay wuu soo furay intuu gabadh kala guursaday dabeedna islaantiyo aniga isoo kaxaysatay oo i keentay magaalada ila soo gashay iyo inankii iyo aabbihii oo odaygii taajir noqday oo halkan joogo ayay islaantii odaygii isguursadeen aniga iyo cabdiraxmaanna dee waxaanu nahay midba mid buu wataa anna hooyadii baa la socdaa isna aabbihii buu la socdaa dee halkaasaan riwaayadii ka bilaabay dabeedna sidaasaanu heesta lagu furiyay riwaayadda dee tii halka kaaga qoreyd ballan ha maxay odhanaysa maxay odhanaysay adaabay kuu qoreyd baashihii adduunkow waxay bushaaraa biligiyo warkaago adiga buruudkaba bulshadowgu hayste baahida kalgacaalkee bartamaha wadnaha iyo bedenkayga jiiftana ana kaaga beer nugul oo aan bogsoonayn miyaan kala ilaaway waar kala ilaawaya ka soco idaacadday ka soco ballan wuxuu inoo yahay waa ballan wuxuu inoo yahay badbaadiya salaame marka qof safraaya bay heestu matalaysaa baashihii adduunku waxay bushaaraa biligiyo warkaago adiga buruudkaba bulshadowgu hayste baahida kalgacaalkee bartamaha wadnahayo bedankayga jiiftana ana kaaga beer nugul oo aan bogsoonayn 100 sano haddii kala baadiyowne baahida kalgacaalkee bartamaha wadnahayo bedankayga jiiftana ana kaaga beer nugul oo aan bogsoonayn 100 sano haddii kala baadiyowne
badbaadiyo salaame ballan wuxuu inoo yahay badbaadiyo salaame axdi baajin maaye adna haygu baydhihin abaydhihin may heestaa hees baa ka horreysay aniga cabdiraxmaan sheekadayadaa nala ogaaday maxamed deero oo odayga bakhaarada u hayaa na ogaaday de markaa maxamed deerna anigu igu soo maqnaa wuxuu doonaya isagu inuu yidhaaha islaanta isiiya ma garanaysaa markuu arkay aniga iyo cabdiraxmaan ayuu ii yimi oo dee i weydiiyey arrintaa meel ka joog baan ku yidhi adiga maaha oo markaan heesta isaga aan la qaaday maxamed deere heestaa kale aan la qaaday waxay ahayd heestii waxay ahayd eebada kalgacalka samayn haa uu qaadayo eebada kalgacalka heesta aan wada qaadayno hawadeyda ha soo gelin baan ku yidhi maxamed deere marka waa lagaaga horreeyey booskan marka hawadeyda ha soo gelin wuuna sheegay dee odaygii buu tegey inankan iyo inantan meel walaala ahayn buu yidhi dad walaalaa oo isguursada xagee lagu arkay ilaa odaygii iyo habartiiba isqaba weeyaan haa midda kale odaygii habartu inan bay isu dhaleen axmed libaax bay isu dhaleen oo nacas ahaa axmed libaax oo nacasa haa nacas ku matelaya ayay isdhaleen marka waa walaalaa la yidhi isma geyaan de haddaba dadkan kala celiya buu yidhi kala qabta dee markaas cabdiraxmaan la weydiiyey cabdiraxmaan wuxuu yidhi sheekadu way jirtaa buu ku yidhi aabihii dee mala laga noqonayo bartaasaa lagaga haynaya dee cabdiraxmaan wuu dayriyeyba ardayna waanu ahayn wuu dayriyey wuu eriyey wataas ku yidhi inantaadi dee dad celinayso waa inanta waa walaalkeed guursanaysa anigu afgaran maaye balla hadal deana ma daynayaan ku yidhi deana waa lay eriyey ma lay eriyey aabbaha iyo cabdi kaamil iyo miyi ayaan dee ku noqday de waa markuu bahalku helayo haa dee sawirka idiray walaalkay buu soo helayo de reer baadiyeah oo odaygu dhalay oo dee gabadhii kale ay dhashay dee dabadna isagiibuu igu daray waxaa metelaya inaan imika milatarigan inuu joogo aan u malaynayo ayaa metelayey dabeedna walaalkay markuu soo magaciis ma xasuustaa xuseen cawil markuu walaalkay helay buu da igu daray odaygiina markaan si isu taagay ayuu oday janaala ay siiyey ya wahaa sacuudiga ka imaan jireen oo sacuudiga shandadun baa loo dhiibay de odaygiiba waa wareera ila reer baadiyu haay dabeedna ma jirtaan ku idhi markaan goolan qaadaya ahayd qarka goolan haydi ka joog adiga markaan leeyahay bay ahayd dabeedna silsilad baa laygu xidho meel baa laygu yuururiyey qasab dee dadkii horna way qasbi jireen gabdhaha haa waa la qasbi jiray dee habeenkii xuseen cawil oo walaalkayo oo iyagu yaa kurdaan baan dee iska maslaxdayo aan ku idhi may walaalo bahashan xadhkahan iga furfur ya ila waan idinla seexanayaa de markay gamgameen ayaan igu boodi de waan baxsay doo kale libaax bay helay tan libaax waa geli doonaa tan golan hights waa buuraley taariikhda aada ugu qoran oo syria iyo israel uu dagaal ku dhex maray bal heesta golan dadku aad bay u jeceliin laxan fiicanna wuu saaran yahay cabdiraxmaan baa la xameeyey hay bal wax naga maqashiidana ma soo dhutisa qaarka goolan hayo sida qoorigo kale arrin laba qurumood qalabkay isu haystaan oo guurti qaadiyo guddi qaybsan loo diray iyagoo garti qalin haddii ay si qaab daran qaalin ugu saxiixan qalalaasa mooye nabad laguma qaate qoto dheera xaajadu ninba qaraad la weeyo qof dhambaadi moode qalbigiyo waxay maqan
qasnadihii jidhkayge aabe maqumani yahay bixin عجيب ma fahante عجيب ka lugaadba si fiican qarka goolan hayo sida qorigoo kale arrin laba qurumood qalabkay isu haystaan waad kadibna waad baxday oo ka dawaan tagay kaymahaas iskaga jiri jiray meelahaas caleemahan cuni jiray de isaguna odaygan soo dhacayaa buu yiri odaygu xoolo badan buu leeyahay moogta aan hanti looga soo qaado odaygii buu soo dhacay reerkii buu yimi reerkii markuu yimi waxa la way baxsata de isma heesa uu leeyahay markaa isna qaadayay baxsataya oo xagee u baxsatay de nin baa la siiyey oo yeedii yidhi siiya ma ninkii bay ka baxsatay ha de isna kaymuun buu galay anuu buu keentay iga raadin jiray waa maxamed dheere cabdiraxmaan dheer maxamed dheer waa ninka reerka naga eriyaday waa cabdiraxmaan ha kaymihii wuu isna galay dee dabadna saa isna dhan iiga baadi doonayey anna aan dhan uga baadi doonayey ayuunba dee mar xeeriya fandhaal kala dhacay ayaanu dee ruwaadda gabagabadeedii ahayn ayaanu isallay markaanu isallayna markaa anigu dhintay bay ahayd oo heesta uu isagu qaadayo ahaa hohey farxadi waa naxdinay ayaa dee uu ku gabagabeeyey dabeedna hase riwaayadiiba ku dhammaatay intan libaaxa bal iyadana erayadeeda wax naga xasuus riyaale maanta dee erbed bi igu muday migana libaaxow mudanaha dugaago ina tahay maqaadiir iyo cadow masiiba marna aad shimbiru tahay matada halowdo wacadkaagu meel maro miisna noqoto awliyo soo midabga doonto macnaheedu dheer yahay muddo aan dhoweyn baan maqli jiray warkaage maantana haddaanahay marti iyo ammaan iyo magantaada aaryo muslinii gargaariyo mahuraani gaadhsi muslinii gargaariyo mahuraani gaadhsi igana libaaxo mudanaha dugaago ina tahay maqaadiir cadow masiiba igana libaaxo mudanaha dugaago ina tahay maqaadiir cadow masiiba marna simbiru tahay matada halowdo wacadkaagu meel maro marna simbiru tahay matada halowdo wacadkaagu meel maro misna noqoto awliyo soo midabga doonto macnaheedu dheer yahay misna noqoto awliyo soo midabga doonto macnaheedu dheer yahay muddaan dhoweyn baan maqli jiray warkaage maantana haddaanahay martiiyo amaaniyo magantaada aaryo muddaan dhoweyn baan maqli jiray warkaage maantana haddaanahay martiiyo amaaniyo magantaada aaryo muslinii gargaariyo mahuraani gaadhsi muslinii gargaariyo mahuraani gaadhsi
marka libax baa is aragtay dee wuu iga hor yimi oo waan usaysanay oo waan iska maslaxay waan maslaxay waxaas laxana cabdiraxmaan dheera saaray cabdiraxmaan baa saaray laxamada cajiib ilaahay u naxariisto ya ilaahay u waa naxariisto cajiib kadib maxaa kugu xigay farxad waa naxdin waxay ugu xigtay warma caashiq islaayi waqtiga isugu dhiibay baanday baa lahaa gebigeediina taana waan wada ilaa waani cabdiraxmaan baan nahay sidaas sideedun baanu safar iyo baadidoon iyo balanbal ugu jiray taana waana la kala eryaday ya oo cali maydhane iyo canab diiriyo oo suguntada ahayd ayaa maxay tahay la kala eryey gowdhe taa riwaayadda baandayna waxallo waxaan ka garanayaa hees guhaan ahayd oo habaar ahayd oo dhaawacaygo waxay ahayd laga helay duurka oo axmed libaa helay oo dee kililka uu jigjiga geeyey dhakhtar oo dabeedna etoobiyana markii colka la ahaa ay ogaatay inaan ahay soomaaliyeed oo etoobiya ilaaliya markay daweysaan waa laga xidhayaaye ayaa heestaasoo dee habaar iyo guhaan ahayd haddaan marka xasuusto waneegi waxay ahayd adduunyadu galgaalashiyo garbarogasho badana wagii guduutaba wajiyaal gadoona ana igu guracana guushayda neceba goonidayda jecela gadigan hayaasha muxuu omasu gelayaa dhulka geestaan jiro muxuu roobkuuga gudhay taladan gorfeeya maxay gow u noqotaa magefaan sameeya layga goynayaa mise waana gaadhine galladiyo barwaaqada walay gadaal dhigay riwaayadii baanday heestaa aan goonida ka ahaa ayaan ka garanaya gebigeed goormay ahayd taariikhda la dhigay dee way isku xigeen be afar statekii saddex statekii baan ayay jecelay ayay kaltan baa riwaayadaha loo xafidi jiray taa wixii ku xigeyna waxay ahayd riwaayad cabdi kaamil leeyahayoo wax allo waxay ahayd walle iyo bileyga taaniya canab diiriya taana keysino wax allo waxay ahayd alla igata iyo inankaa yara xasan cabdi cali aan ku leeyahayoo ahaa reer kililka oo halkan qaar daba galgaleen oo yidhaaheen ninkan xabashi buu basaasiye waxo inankii raayna la heesaayey habeen madow buu naga tallaabay intay daba galeen habeen madow naga cararay kadibna kumuu soo noqon halkan anaaba beri dhexdii oo aan tegey 2000 jigjiga tegey weligii ana etoobiya ma tegin oo ka baqan jiri ma arag waan doondoonay cabdi cali markaasaa ku cabdi xasan cali cabdi markaasaa laygu yidhi dowladda islaayeen kililka oo jaad buu soo dirsadaayo meelaha duurkuu ku jiraa baa laygu yidhi duura haa dee adaaba kugu dari baan duurka ku jiro nin duur galay maan ka doonaa dabeedna inankaa ayaa taana agtarkaa aniga iyo inankaa haa wax allo waxay hataa tii ka dambaysay dee tii aad markii weydiinaysay la badbedelay sagaalka magac lahayd taasaabanan midh ka hayno xasan aadan weydiinayay hees isagu iyo codeeyey ayuu weydiinayay na heestii qaad ya waa riwaayadda cali caateeye oo dee 5 iyo 6 waxaa ergadan rag ka diiday adaan kaa ogolaaday wada yaablaba waayaha fura weheshiga cibaarada waa isla riwaayad magacaasaa ugu dambeeya samayn haa weheshiga cibaaradu waanada ka xeel dheer de waa markii halkan naloo galay bay ahayd buuraleyda buc iyo bacda oo gawdana laga saaray markaasay heesa ku jiray maxaa mise waa kuwa lume bay ku jirta waliya bilay ka tahay wada lume heesahaas oo dhan dee riwaayadda waxaanu nahayn anigii cali maydhane balsi horta aan iska hubiye haa cali maydhane anigii cali maydhane aan nahay anigii cali maydhane aan nahayna cabdiraxmaan markaa ilama joogin riwaayaddaa kalena riwaayadii baanan xataa intii ay ahaayeen aanan xasuusan oonan garanaynba waqti baa ka soo wareegay waxaan rabaa markaa 85kii 86 waxaasum intaasun bay ahayd heese maxaad soo saartay ma haysinba sidii dalka looga baxay ma haysin
laba nin oo axmed shire iyo axmed libaax iyaga taariikhdoodii bal maxaad ka xasuustaa dee taariikhdoodii intaasu nimanka iyarun baan wada joognay axmed libaaxna dee riwaayadihiisu horey u ahaayeen riwaayad baa jiray ergadaan rag ka diiday adaan kaa ogolaaday hal xaba ka garan maayo hal aniga iyo allah naxariista jannaha ka warabay kasi xaaji aadan baan nahay yaa mid ka garan maayo oo axmed libaax baa lahaa maydhana ku jira sana soma miya yaa ista maydhana ma taasi ku jirtay ma kuwan maydhan axmed libaax kuwii hore dhowr iyo lixdankii weeye heesihiisa halkan aad ka maqashay maydhana laakiin actarba ka ahaa haddana mid ka garan mayno aniga iyo allah naxariistay kisiba ka heesaynay iyo cali cumar maydhane xabad iyo inankaa yara aan ku lahaa xuseen may inanka yara etoobiya nooga baxsaday yaa ayaanu ahayn wallahi inaanan mid ka garanayn mid magaciisa saddexan maxaa la odhan jiray axmed libaax axmed xasan xirsi ayaa naanistiisa axmed libaax ahayd axmed xasan xirsi baa la odhan jiray baandayna riwaayad kalaanu dhignay amba koogiya maxaad la onkodi la yidhaaho mar tiina xabad ka garan maayo heestii buu lahaa soo maaha ummad yahay qabiilkii axmed baa lahaa ummad yahay qabiilkiyo qaranimadu waa laba aan isqaadi karino weligood isqabanay dee rag iyo dumar wada qaadaye busi iyo aniga iyo khadra daahir iyo waanu badnayno xamar baanu tagnay mar layidhi dhuxdhux baa jirtay ayay ahayd oo xamar aanu tagno xamar wax ka dhigaynay waa gartay waan si fiican axmed libaax xilliyada dagaalada ku dhintay axmed libaax waxay ahaayeen 3 nin meel halkaasoo xaafad ciidamadu leeyihiin oo dambuluqdaasoo xagga saylada xigta ayay reerkoodu deganaayeen reerahoodu xaasaskoodu hadday deganaayeen waxaa intay xagga xero soodaanta la odhan jiray iyo soo galeen iyo xaafadda wax kusoo tuurtuureen dee dabadna nimankana waa ciidan marka waxay ahaayeen xaamud caydiidkan imika fanaaniinta booliska haysta iyo axmed libaax iyo baanday saddexdaasoo 3 guryo disaan isugu xiga ku jira waarda caruurteena aynu difaac bayna yidhaaheen marka iyagu umay dagaalamayn kuwaana uma dagaalamayn kuwana umay dagaalamayn iyagoo difaaca naftooda iyo caruurtooda ayay ku jireen dabeedna show meel dhow baa laga soo shiishay horta 3doodaba waa la dhaawacay may axmed libaax baa dhintay axmed shire ma dhiban boodaday kaga dhacdo waa la eryado xero 24 leedo xaggaasaa la isla galay xamidna wuu dhaawacmay axmedna madaxay kaga dhacday axmed halkiibaa meydkiisa lagaga tegey kowdhe laakiin baanday iyo waxaa la israaciyo diyaarad lagu qaaday helicoptera iyo maxay tahay ninkan xaamud marka halkaasu ku dhintay axmed libaax waan gartay aad baan u fahmay maxaa kale isleeda taariikha waa ka tagteen waad ku dari kartaa xaggaan ku ugu daraa imikaaban xeeqay ninkani dhimanba maayo imikaaban xeeqay maxaan ku daraa tii u dambaysay baan taaganaye mar haddaan wixiiba waxba ka garan waayey waa iska hobleel intii aan gartayna sheegay maskaxdii oo dhan baa si isugu yaacayso waxunbaa nagu dhex buuqaya waxaasina meelay nagaga yimaadeen garan mayne haddii taariikhdu badato lafteedu wuxuu isku dhex yaacdaa laakiin ilaahay cimriga iyo caqliga ku barakeeyo wax fiican baad runtii ka sheekaysay waana ku mahad celinayaa waraysigan intaasaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal intaasaynu barnaamijka kusoo koobaynaa caashiciga geedi intaan horta caasha ka bixin weli ma lagu aamine cabdillaahi waa isku codeegtiin waaba jabuuti ba weydii heesahaygaba iyagaa qaada haye waa kuwii halkan noogu yimi iyagoo lasoo xafidsiiyey oo aniga heesahaygi sita dabeedna halkan hudhe halkan wax ka cunayna ayay gabadha tiri heesahaasaan doonaya inaan qaado dabeedna nin wariyaabaa intuu soo dhaqaaqay ku yidhi oo heesta maadaale maxaad u qaadaysaa tii lahayd baa kursigaa ku fadhida xageed u qaadi markaasay tiri maya amine cabdillaahi ay soo siisay amine cabdillaahi male buu yidhi yaa been laguu sheegni waxaa cashicigaa leh waana tan fadhida yaa marka ha ku ceeboobin annagaa doonaysa inaad noo qaaddo soo maaha gabar horeo soo qaaday oo musig ku soo qabatoo noo keentayba markii la ogaaday inay tii casho tahay waa laga xido marka aad ba isku adeeg maya waan isu soo shabihi jiray waan ka yar cod weynaayay iyadoo cod dhuuban bay caad u sii lahayde
sibuu u yar yugyugsanaayo ha meel waysu yargeline maasantay caasho ciga geedi daawadayaal idna waad mahadsantihiin intaynu barnaamij kale ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Thank you.